سياسة دم والبا سياسة هذا ما سياسة الصومالي مكهذا لنا كان تذكر دمي ما أهن وضع دقاتير لكن وحقال له وضع أكسون يهي إن كنيني برستمالك ويهي حنون بابية تاسو مركا كدغان أنيق ما هي شخصي كهلا أما أولون دلولا سياسة لكن قفلي با وأركي كرا وحا إنديهيسا أي أقبتان سي isdaba joog ah waliba soo noqnoqosho ah inta badan marka qofka wax laga weydiiyo xaaladda ama siyaasadda Soomaaliya qof waliba waxa uu ku cabiraa waxa title-kiisa ama khibradiisa ay tahay hadii uu yahay dhaqaaliyahan hadii uu yahay sharci yaqaan hadii uu yahay dhakhtar iyo wax waliba anigana sidoo kale maanta siyaasadda arrimaha Soomaaliya waxaan ku cabirayaa filim waxa laga yaabaa in isweydiiso maxaa iska gali karo filim iyo siyaasadda Soomaaliya laakiin aan ku sheego marka aad filim sameynayso waxaad u baahan tahay sheeko aad filimkii ka samayso marka sheekadii heshana waxaad u baahan tahay jilayaal filimkii ku jili lahaa waliba jilaaga ugu horeeyo oo filimkaaga ka noqon lahaa leading actor markii aad intaas hesho waxaad u baahan tahay jilayaal kale waxaad u baahan tahay goobta lagu qaban lahaa filimka iyo intaas marka cabirkeen ugu horeeyo markaas aan ku saleyno hadaba filimka magaciisa waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxa leading actor ka noqonayo qofka markaas madaxweyne ahaan loogu doorto waxa jilayaasha kala noqonayo baarlamaanka waan idin siinaa cod qof walba inuu fadhiistarabna abdooriyaasha alla fadhiisto waxa tuugada ama laadrinta waxa aan dhahnaa oo dadka filimka qaaciniinta ka ahna noqonayo al-shabaab ama wixii kale oo la soo abaabilo markaasi wax markii filimkaas uu soo baxay laakiin shaleemad intay tagaan tikidku u jaranayo oo daawanayo oo kadib markii ay filimka dhameystaana isku qabsanayo actorkaasi fiican buu ijilay kan si fiican uma jilayna waa shacabka wali ma la yaabtay madaxweynaha inta uu ku jiro ololihiisa siyaasadeed iyo marka la doorto farqiga u dhaxeeyo hadaba maxay tahay sababta waxay tahay madaxweynahan intaan la dooran waxa uu aaminsan yahay 80% ugu yaraan in uu sameyn doono waxyaabaha uu balan qaadayo hase ahaatee marka uu ku fariisto booskaas oo uu yimaado meeshii uu soo ordayay waxa ka hor imaanayo ama la horkeenaya script oo markaas si ah wax walba oo uu sameynayo iyo sida uu sameyn lahaa iyo goorta uu sameyn lahaa iyo qofka uu la sameyn lahaa waana scriptigaas wax walba anaga aan u aragno inay madaxweynahaas uga imaanayaan wax qabad ahaan ujeedadan u socdo dhankeeda si aan si fiican iskula sii talaabo qaadno ila daawo muuqaaladan waxaan dib u habeyn ku sameyn doonaa haddii alla yiraahdo xoojinna doonaa hay'adaha amniga qaranka si ay awood buuxda ugu yeeshaan hanashada ammaanka dadka iyo dalka muddo gaaban gudaheed jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weyneyd yaan gadaal ka geli jid la xirayo ma jiraayo dadka dan yarta ah ee noloshoodu ku tiirsan tahay dakhliga maalinlaha ah waxa ka soo yeerayo cabashooyin ballaaran kii gaari gacan ku xamaalanayay iyo kii gaari dameer ku shaqaysanayay iyo hooyadii ilmaha dusha ugu xamaalanaysay iyo tii wadada dhinaceeda shaahi ku gadaysay way ku adag tahay maanta nolosha maadaama ay marar badan magaalada kala xiran tahay isu socodkana uu adkaado madaxda qaranka maanta joogto ay xilku ka dhamaaday asal ahaanba uma diyaarsaneen inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dana kale niyadooda wax kale ku wajahneed taas ayaana keenta maanta meesha lagu ay ka war taas ay ii sawirtay in waxa aan arkaynaaba aysan ahayn qofka iyo waxa uu balan qaaday intaba laakiin waxa wax qabadka aan ka sugeynaa ama qofka madaxweynaha noo ahba oo uu noqonayo qof astaan ah ama character ah oo ku jiro boos uu filim ka matalayo madaxweynaha aan ka sugeynaaba wax qabad wax walba uu sameyn lahaa waa wax meel ku diyaarsan inta shir uu qaban lahaa inta meel uu tagi lahaa marka la soo darto qof kale uu sii dooran lahaa khilaaf siyaasadeed markuu dhaco inuu ka hadli lahaa iyo in kale scriptigaas inta badan waxa uu ahaadaa sida loo qoray inkastoo mararka qaar la update gareeyo ayna ku xiran tahay haddii ay dhacaan wax lama filaan ah iyo haddii kale anigu waxaan waa ra'yigayga laakiin waxa laga yaabaa qaar idinkeeda ka mid ah inay isleeyihiin madaxda caalamkaba marka ay ololaha doorashada ay galayaan ballanqaadyo ay sameeyaan hadhowdiin aysan ka bixin maya laakiin teena ma jiraan wax loo dhigo tani inay jileen tahay waxa ku cadaynaysa waxyaabaha ugu hore scriptiga ku qoran waxaa ka mid ah marka ay madaxda saas ay kursiga u hesho in ay waxba kama jiraan ka soo qaadaan wax qabadka madaxdii ka horeysay taasoo markaas si toos ah cadaabad u dhex dhigayso
madaxweynihii hore iyo midka markaasi booska helay waxyaabaha la yaabo waxaa ka mid ah wixii la soo qabtay dawladda inay mar walba inkirayso ay dhehaysa meel eber aan ka soo bilaabay waxaan hubaa hal sano iyo bar ka hor wax waddaniyad ka hadlaayay waa yaraayeen waa laga baqaayay waddaniyad Soomaaliya ha noolaato haddaba madaxweynaha muu iska diidi karaa jiliinka anigu ma garanayo laakiin waxaan aad u hubaa inuu directorka xanaaqayo waxaan u tusaaleynayaa muuqaalkan sawir yar aan iga sheekeynaa Soomaali qarankeedii oo gaari saaran habeen madow wuxuu ku dhacay dhooqo markaas maalin walba sanad walba waxa la raadiyaa mechanic oo baaburka ka saara meesha mechanicii la keen lugu la baxa u dhuntaa marka mid walba la keeno ama motorka bar kala baxa u socda qaar lugu la baxeen qaar boolashe la baxeen marka loogu dambeysay mechanic fiican loo helay marka ayaga waxay moodayeen mechanic aan macnaha kuwii kale ayaa loo soo dooray markii la arkay ninkan mechanic khatar yahay oo baaburka hagaajiyay oo nalal ku shiday oo martiisna uu arkay wixii wax yaala ayaa waxa la ninkan baaburka dhaqaajir wax laga kaxeeyay meesha marka wadankeena maaragtay sidaas loogu talagalay inuu dhooqada ku jiro qarabkiina dusha ka saaran yahay gaariga shacabkeen way saarihiin qofkii loo keenana wax barbo la baxaa markuu macnaha baawarkii gobol baa la xadaa maalin walba ninkii noo wanaajiyo oo maamulku noo shiray gaariga dhaqaajin lahaa motorka kiciyay waxa la ninkan waa nin xunba waa meesha laga qaado baawarku ku dhaqaajin rabaa marka waa saaxiibkay Farmaajo Amin Artist waa artist weyn marka tusaalahaas waxa uu u soo qaatay madaxweynaha hadda ee Farmaajo oo uu kala jeedo markaas madaxdii ka horeysa kulli gaariga wax kala babaxaya laakiin isaga waxa uu ahaa qof daacad ah oo gaariga waxba markaa kala ma uusan bixin oo isagoo hagaajintiisii ay in yar u hartay ayaa laga qaaday waxaana ka qaaday director waayo filimka waxa uu sameeysan yahay in oo aanu gaarigaas balakicin oo sidaas uu ahaado waa sawir aad u qurux badan marka waxa isweydiin mudan marka maanta isagoo madaxweyne ah waliba helay hiil iyo jacayl ka badan kuwii hore marka la dooranay muxuu ilaa ay hadda uu u kicin waayay gaarigii waxa meesha kaaga soo bixi kar marka su'aal ah isagana ma wuxuu ku beeray qolooyinkii ka horeeyay oo marka gaariga marba boolka ka furan jiray nolosha cadiga oo qofku ku nool yahay qaabku yahay iyo wax qabadkiisa iyo marka la yiraahdo wixii film baa laga dhigayaa waxay kala noqonaysaa yaa jiliinka ku fiican iyo yaa sida nolosha dhabta caadiga ku fiican sheekadan ayadoo aniga ahaan aragtideeda ay ugu sawiran tahay jiliin haddana jiliinka laftirkiisa ayaa lagu kala fiican yahay waa aktarada qaar hadalka ama line-ka loo dhiibay ay leeyihiin ay filimka ku leeyihiin hadduu yahay khudbad iyo haddii kaleba waxay ku daraan qosol iyo xarago inuu ayaga ka imaanayo oo kale ayagoo expressionkii muujinayo calaamooyinkii nabadoonka lagu yaqiinana halkan maanta lagu guddoonsiiyey aktarada qaarna wuu ku adkaadaaba waa hadalkii ay gafgafayaan kuwa ku dhaawacmay ayagoo si geesinimo leh hadda fariinteeda aniga kuma socoto qof gaar ah ilaa ay kulli waxaan aaminsanahay in dhammaan madaxdeeni na soo martay qof waliba markaasi ka go'an tahay inuu isbedel sameeyo ma jirto qof u imaanaya inuu fashilmo ama sida uu isaga rabin ay wax u dhacaan laakiin qof waliba marka la doorto oo booskaasi soo fariisay ayaa waxa uu la kulmaa scriptigaas uusan waxna ka bedeli karin markaas ayuu go'aansadaa si aan loo dhihin waa fashilantay in sidaas ay tahay wax uu ku wado haddana way u noqon weydaa hadda waxaa jiro siyaasi la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabshakuur oo runtiina codkarnimadiisa iyo dulqaadkiisa iyo qaabka siyaasadiisu ay tahay ku soo jiitay dad badan oo taageerayaal badan ku yeeshay laakiin aniga ahaan haddii uu noqdo kaba soo qaad madaxweynaha xiga ma jirtaa wax rajo ah aan ka qabo may sababtoo waxaan ogahay in aktarka oo hadda joogo lagu bedeli doono oo isagana dhankaas uu ka raaci doono kaliya inuu musalsalka uu dhankaasi ka sii wado oo wax walba isaga wado ballanqaadkiisa haddii oo yacni dhan diiniyan uu ku socdo iyo haddii oo dhan kale uu ku socdaba in oo uu ku dhaafi doono meesha markaasi uu kursiga ku fadhiisto
haddii aad tahay siyaasi shacabku waxay u baahan yihiin madax go'aamadooda iyo aragtidooda iyo ficladooda ayaga ka yimid dadka ugu adeega laakiin aan raacin wax meel ku qoran waa maasantiin dhammaantiin